calling to check if you might be available tomorrow afternoon to meet with Khalid. aaminaysaa qofka aan hadda la hadlayay inuu ahaa ChatGPT oo aniga dadka ii call gareeya ama ii waca businessyadana ii call gareeya ama ii waca haddii restaurant ama maqaaxi aan wax uga baahanahayna ChatGPT isaga ayaa ii waca ama ii call gareeya dalabkayga iyo waxaan u baahanahayna u sheega haddii aan ChatGPT-gayga booqdo waxaad arkaysaa in halkan ay ku qoran tahay my AI personal assistant haddii aan ku jiido wuxuu kaliya iiga baahan yahay inaan u sheego lambarka iyo magaca qofkaas iyo waxaan uga baahanahay isaga ayaa sameynaya 10 daqiiqo soo socda waxaad ku baran doontaa sidii adiguna aad ChatGPT uga dhex samayn lahayd your AI personal assistant dadkana kuu call gareeya on your behalf magacaygu waa Khalid waxaan ahay aasaasaha hirgelin AI agency waxaan halkaas ku bixinaa free community dadka aan ku barno si bilaasha AI-ga sidii ay lacag uga samayn lahaayeen haddii aad business tahay oo u baahan tahay AI sadabna waxaad igala soo xiriiri kartaa isla hirgeli AI agency YouTube-keenana subscribe si aad u hesho fiidiyoyo intan ka badan oo faa'iido ku leh Facebook page-keenana follow garee aynu isla eegno 10 daqiiqo soo socda si aad adiguna aad u awoodo inaad u samaysato AI personal assistant in ChatGPT waxaynu samayn doonaa mid cusub oo aynu ka soo bilaabayno from scratch below si aad u fahanto oo adiguna si fudud aad ugu samaysan karto si aad GPTs-ka waxaan ku dhex samaynaynaa ChatGPT chatide waxaan ku dhex samaynaynaa ChatGPT-ga qaybta GPTs-ka GPTs-ka si aad access ugu hesho ama aad u isticmaali karayso waxaad u baahan tahay in ChatGPT-ga uu ku haado qaybta subscription-ka ee bishii la bixinayo okay aynu isla eegno markaa sidii aad personal AI assistant aad u samaysan lahayd GPTs-ka markaad timaado waxaad tegaysaa explore markii aad timaado waxaad tegaysaa badhankaas ku qoran tahay create markii aad doorato waxaa kuu soo baxaya page sidan oo kale ah name-ka waxaynu u bixinaynaa wixii aan anaga uga baahannahay inuu noo qabto maadaama waxaan u bixinaynaa new call assistant okay description-ka qaybta description-ka waxaynu ku qoraynaa wixii aan uga baahannahay oo kooban waxaynu hadda ku qoraynaa make call on my behalf inuu callska ii sameeyo ama uu dadka ii garaaco aniga oo ka maqan ama isagoo talay qaybta ku xigta waa instructionku waa qaybta aad u sheegayso ama AI-gana aad ugu sheegayso kuna train garaynayso waxyaabahaad uga baahanto oo dhan inuu kuu sameeyo waa qaybta aad ku barayso ujeedkaaga iyo waxa aad ka damacsan tahay inuu yahay marka halkan waxaa lagu qoraa prompt fiican uu ku fahmayo min bilow ilaa dhammaad promptigan ayaan ku qoray you are my personal AI assistant abdi baan ula baxay AI assistant sidoo kale your main role is to make calls on my behalf ujeedkaagu wuxuu yahay inaad aniga koolasha aad ii samayso markaad qofka aad garaacdo hadduu shakhsi yahayna waxaad samaynaysaa introduce yourself as a Khalid assistant waxaad u sheegaysaa qofka inaad tahay assistantkii Khalid laakiin markii aad business u garaacayo ama restaurant uu ka dalbayo cuntiyo waxyaabahaas there's no need to mention your relation to me ma sheegay inuu yahay assistantkii laakiin toos buu garaacaya xornaya okay maqaaxidii hebel soo maaha waxaasan u baahanahay mar dhowna waan imanaya to collect si aan usoo doonto si aad promptigan u hesho waxaad ka helaysaa fiidiyogan promptigiisa iyo waxyaabahaan isticmaalayno qaybteena free community-ga hirgeli AI ku qor qaybta community-ga tag free community-ga dooro fiidiyoga qaybtiisa hoose ayaan dhigay promptigan si aad markaa promptigan u bedesho isjasiineed waxaa u baahantay inaad soo download garaysato ChatGPT-gaad u tagto meelaha aad ChatGPT u sheegto meesha oo assistantka cabdi assistantka aad adigu rabto inaad ku bedelatid hadduu gabadh magaceed yahay iyo hadduu wiil magaciis yahayba meesha Khalidna aad magacaaga ku bedel waynu u sheegnay markaa wixii aan uga baahannahay oo dhan conversation starter waxa weeye haddii hadalka aad ku bilaabayso conversation starter waxa weeye inaad hadalka ku bilaabayso wixii aad u baahan tahay kadib si uu kuu fahmo waxaad odhanaysaa call someone kadibna wuxuu ku weydiin doonaa lambarka qofkaas iyo waxa aad ka rabto okay aynu ku soconno halkan canvas-ka waynu ka qaadaynaa image generation-kan waynu ka qaadaynaa kadib create new action baynu odhanaynaa marka qaybtan ChatGPT ama GPTs-kan ChatGPT si uu qof u garaaco waxa uu u baahan yahay AI software kale oo awooda
phone calliska inuu sameeyo. So waxaynu ku xiriirinaynaa AI software kale si uu u sameeyo phone calliska inagoo oo dhex joogna ChatGPT-gaaga. waxaynu isticmaalaynaa AI software loo yaqaano Plan AI. So waxaan imanaynaa qaybta searchiga, waxaynu ku qoraynaa Plan AI. Plan AI calaamadiisu waa ka casaanka ama guduudka si qof walba u yaqaano iyo cadaanka isku jira. Okay, kan markaynu ku jiidno waxaa noo soo baxaysa shaashadan waxaynu dooranaynaa sign up si aan u sameyno haddii akoon aanad lahayn. sign up markii aad doorato waxaa kuu soo baxaya idna shaashadan. kadib meeshaas waxaad ku qoraysaa magacaaga iyo magaca last name-kaaga, meesha aad joogto iyo lambarkaaga iyo email-kaaga. intaas aad ku qoraysaa si aad isku diiwaan geliso. kadib agree ayaad odhanaysaa, kadibna sign up ayaad odhanaysaa. markaa sign up tiraado waxaa kuu soo baxaya page-kan oo kale markuu kuu soo baxo oo magacaagiina meeshan uu ku dhan yahay. si aad markaa ugu xiriiriso ChatGPT waxaad u baahan tahay API. API-gu waa maxay? API-gu tusaale ahaan waa sidii haddii aad tagto restaurant ama maqaaxi, waxa dalabka kaa qaaday waa waiter ama mudallab. waiterkaas wuxuu u dhaxeeyaa adiga iyo qofka kitchenka jooga ama madbaxa jooga. dalabkii aad u sheegto ayuu wuxuu tagayaa madbaxa, qofkii chefkii buu u sheegay, wuxuu kasoo qaaday cuntadaadii adigoo kuu keenay. ABS-ka markaa waxaa loo soo gaabay application programming interface. qaabkaas ayuu u shaqeeyaa. labada software Plan AI iyo ChatGPT ayuu isku xiriirinayaa. wixii aynu ka codsano Plan AI haddii uu phone call noqoto ayuu u sheegay in loo baahan yahay, sidaas ayuuna ku keenaya. qaabkaas ayaa loo yaqaan API. marka in aad halkan tagto oo aad informationkaasoo dhan buuxiso waxaa ku siin doonaa scheme ka fudud oo halkan scheme-ka aad ku buuxin doonto. isla scheme-kan wixii aan ku diyaariyey waxa aan dhigay qaybta videoga ka hooseysa ee free community-geena. si aad labadaasba u qaadato promptiga iyo scheme-ka, fadlan booqo hirgeli AI qaybteeda free community-ga, halkaas ayaan kugu diyaariyay. okay, kadib maxaad samaynaysaa markaad scheme-ka soo qaadato? copy ayaad soo siinaysaa. copy markii aad samayso ee aad qaybtan timaado paste, qaabkaasay kusoo bixi doonaa, laakiin waa inaad format ka dhigtaa si uu isagoo habaysan ugu soo baxo. okay, intaa wixii ka dambeysa waxaynu sameynaynaa markaa inaan isku xiriirino API-ga aan raadino. Plan AI baanu tegaynaa, kadib qaybtan hoose ayaynu tegaynaa ee magacu ku qoran yahay, kadibna setting ayaynu tegaynaa. halkaasaynu API-ska ka helaynaa. API keys waa kan. API key markii aynu dooranno waxaanu sameynaynaa new API key, inaanu mid cusub sameyno. new API key markaanu sameyno create key baynu leenahay. create key markaan idhaan copy baynu soo siinanaa. copy markaynu soo siino, maadaama uu API-ga isku xiriirinayo waxaynu dooranaynaa authentication-kaynu dooranaynaa, kadib API key baynu dooranaynaa. API key markaan doorano halkaa hidhanka waxaynu ku baas garaynaynaa API-geeni. markaynu API-gana ku baas garayno custom ayaynu odhanaa, kadib authorization baynu odhanaynaa. authorization markii aynu nidhaano saxna waxbaynu qaladnay. kadibna save ayaynu odhanaynaa. save markaynu nidhaano intaa kale waxba ka bedeli weyno ee keliya waxaynu sameynaynaa in aynu sawir dhigano. si aan sawir u dhigano markaa waxaynu u diraynaa DALL-E oo ah use DALL-E baynu leenahay. okay, sawirku inagu noo soo saaro si aynu ugu aqoonsano ayaynu samaysanaynaa. marka tabkaas kooban ayaa waxaad u qaadaysaa in aad ku samaysato AI assistant that makes call on your behalf. markii sawirka aynu sameyno waxaynu sameynaynaa create ayaynu odhanaynaa samee. kadib wuxuu odhanayaa okay, share GPT-gaagan ma waxaad ka dhigaysaa GPT store-ka si uu qof walba u isticmaali karo adduunka jooga, mise waxaad ka dhigaysaa in qof walba oo linkigaad u dirto uu kula isticmaali karo? by this time only me baan ka dhiganayaa maadaama uu tusaale yahay. save baynu siinanaa. only me markaad ka dhigato wuxuu ku ahaanayaa mid adiga un ku khuseeya, maadaama uu magacaagii ku jiro oo wax walba ku jiro, qof walbuu garaacayo wuxuu odhan doonaa un okay, view GPT baynu leenahay. sidaas waxa aad ku haysataa new AI assistant oo callka kuu sameeya. waa kana my AI personal assistant-kii waxaa ka hooseeya hadda new
call assistant. Okay, call someone baynu leenahay. Marka way tijaabinaynaa. Waxaa iigu jira laba sim card. Labada sim card iigu jira mid ka mid ah ayaan soo garaaci doonaa ama soo wici doonaa. Kadib waxaan iskula bixi doonaa magaca gooniga. Waxaynu eegi doonaa bal waxaynu dhisaynay in uu shaqaynayo iyo in kale. Okay, si aan markaa qofkan u garaaco wuxuu leeyahay phone numberkiisa sii. Okay, waxaan leenahay markaa magaca baan iskula baxayaa. Waxaan iskula baxayaa kaba soo qaad Cumar baa la yiraahdaa. Okay, call Cumar. Okay, hadda wixii aanu ka rabnay waynu qornay bal waxaanu eegi doonaa markaa in uu call kan sameeyo iyo in kale. Waxaanu nidhi call Cumar garaac una sheeg Cumar garaac. Waxaynu nidhi Cumar garaac waxaan rabaa inuu beri tolay galabta inuu waqti hayeen kale inaan weydiiyo si aan uga sheekaysano siduu AI u shaqooyinka u qaban karo iyo siduu uu faster ama degdeg uga dhigi karo. waxaanad ogaataa inaanan waqti hayn oonan available ahayn Jimcaha iyo Sabtida, laakiin wixii intaa kasoo haray waa okay. waana kan numberkiisii. Okay, intaasaan u sheegnay. kadibna wuxuu odhan doonaa hadalkan aan ku odhanaya confirm ma siinaysaa, kadibna go ahead uu sameynaya. Okay, hadalkan markuu cajiibiyey buu igu yiri ha okay go ahead baan odhanaya markaa hadda garaac. Go ahead. Okay, waxaan eegi doonaa markaa bal in uu na soo garaaco iyo in kale. Confirm markaynu dhiraano okay confirm baynu nidhi bal waxaan eegaynaa inuu na soo garaaco iyo in kale. Okay, exactly. Waa aragtaa. Okay, speaker kan furaya markaa. Hi, Omar. This is Abdi, Khalid's assistant. I'm calling to check if you might be available tomorrow afternoon to meet with Khalid. I don't know if I am available tomorrow actually, but what is the reason? He wanted to discuss how AI can help with tasks and make them faster. Would tomorrow afternoon work for you? Oh, that's fantastic, but I'm not available tomorrow. Well, actually, I'm available on Friday. How? Great. I'll let Khalid know that works for you. He'll reach out directly to set up the details. Thanks for your time, Omar. Oh, appreciate it. Cheers. You're welcome, Omar. Have a great day. Wakaas. That's it. kadibna si aan markaa wixii aniga iyo tusaale ahaan aniga waxaan u diray Cumar iyo AI waxay ku wada hadleen si aan u ogaado. codkana waa ogaan kartaa, qoraalkana waad ogaan kartaa. codka si aad u ogaato waxaad u baahan tahay inaad booqatid Plan AI. laakiin haddaanad hawshaas oo dhan aanad hayn, waxaad tegaysaa kadib call logska tegaysaa. call logska markaad tagto waa kan waxaa soo baxaya wixii ay ku wada hadleen. wixii ay ku wada hadleen iyo codkii inaad shidato. laakiin haddaanad waqti u hayn waxaad halka tegaysaa ChatGPT baad odhanaysaa ii sheeg show me the transcript. wixii aad ku wada hadasheen bal ii sheeg. kadibna ChatGPT waa inuu sheegaa waxaa laaliya wixii lagu wada hadlay. waa kaas transcriptigi intaan ku wada hadalnay buu yiri. waa u sheegay inaan Khalid ka socdo. kadib Cumar wuxuu igu yiri I don't know if I'm available tomorrow. actually ma ogi inaan beri tole aan waqti hayo in kale, laakiin waa maxay sababta uu western reason. kadib waa u sheegay buu yiri inaad rabtid inaad AI aad kala hadashid. marka saas ayaa loo sameeyaa. qaabkaas ayaa loo sameeyaa AI assistant dadka ku garaaca ChatGPT adigoo isticmaalaya. si aad markaa fiidiyoyadan iyo fiidiyoyo lamid aad u hesho fadlan subscribe saar YouTube-kan, Facebook page-kana follow gare. waxyaabo badan oo aad ku faa'iido iyo sidii aad lacag AI uga samayn lahayd ayaan ku bari doonaa. isku day in aad lambarada wadankii aad ku samayso. ma ogi lambarada wadankii uu qaadanaya in kale, laakiin haddii uu kuu shaqayn waayo lambarada wadankii isku day inaad garaacdo ama wacdid qof meelaha kala jooga si uu callkii toos ugu dhaco markaa adiga oo si uu callkii markaa toos ugu dhaco wixii aad uga baahan tahay inuu sheego. wabillahi tawfiiq. videogan intaasaan kusoo koobi doonaa.